لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. walaalyaal waxaynu bilaabi doonaa cashirkeenii taxanaha ahaa. waxaanu ku bilaabi doonaa aadaabta idin qaadashada. qofka markii guri inuu doono inuu galo soo u idin qaadan lahaa. qofka muslimka kow waxaa lagu baahan yahay inuu iska gelin guryaha dadow ilaa uu ka idin qaato. markuu idin qaato waa inuu galaa. haddii uu mataqaanaa uu iska galo waxaa bilaabanaysa bilaa akhlaaq qofka inuu yahay, qofka inuu akhlaaqdiisa ay xun tahay. qofka muslimka waxaa lagu baahan yahay guryahadooda markuu galaayo inuu idin qaato, asigoona idin qaadanin guryahadooda inuu iska gelin. dhaqan ahaanna uma fiicno, akhlaaq ahaanna uma fiicno. see loo idin qaadanaa marka? albaabka waa in la garaacaa 3 mar kaliya, 3 mar in laga badinin. albaabkan waxaa loo garaacaa si dhimrin ku jirto, si tartiib ah oo dadka aysan ku naxaynin. 3 qofka markii la weydiiyo yaa waaye la dhaho, qofka inuusan dhihin aniga waaye. sababtoo ah qofka haddii ani waaye haddii uu dhaho waa ibliis hadalkii oo dhahay. waa markii ilaahi subxaana wa tacaala amray malaa'igta inay u sujuudo nabillaahi aadam, oo ilaa ibliis istakbara, markuu ibliis iskibirsiyey, kibirka oo muujiyey oo ana oo dhahay. lidaa qofka muslimka waxaa lagu baahan yahay inuu magaciisa ku bilaabo oosan dhihin aniga. akhlaaq ahaan iyo diin ahaanna ma fiicno. qofka markii la weydiiyo oo soo gal la dhaho oo idin qaadashada oo dhammeeyo oo la soo geliyo inuu ku bilaabo salaanta islaamka ah, asigoo indhaha laabaayo oo meelaha fiifiirinaynin, guryaha dadoo fiifiirinaynin. haddii guryaha dadoo inuu fiifiiriyo bilaabo, waxaa bilaabanayso qofka in laga shakiyo, qofka inuu akhlaaqdiisa ay xumaato. qofka waxaa lagu talagali mar alla markuu guri galo inuu indhaha laabo asigoo salaanta ku bilaabayo. 5 qofka waa inuu gelin labadiisa waalid qolkooda waqtiyo gaar ah. waxaa ka mid ah salaada fajirka ka hor iyo salaada duhur markii la joogo, iyo salaada cishaaya ka bacdi inuu qofka gelin. sidaa darteeda waxaa loo reebay 3daas waqti. waa 3da waqti, waa hooyadii iyo aabaha 3da waqti waqtigooda iyo waqtiyaasha ay kulmayaan. waay salaada fajir ka hor waa waqtigii ay jiifaan, xaaladahay ku sugan yihiin ma taqaanid. lidaa marka waxaa loo baahan yahay waalidkaaga qolkiisa inaa waqtigaas aadan galin, waalidiinta qolkooda inaa waqtigaas la gelin, iyo waqtiga duhurka in la gelin. sababtoo ah waa xilliga nasiinada, xaaladahay ku jiraanna ma aadan taqaanid. iyo salaada cisho ka bacdi, cisho markii la dugto qolka hooyada iyo aabaha waa inuu khufulkaa saaran yahay, aadan geli karin. cashirkeena maanta wuxuu ku ogyahay intaas. hada wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.